السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام عليكم خير بيد الجينيا وولالكم ويفا شاكر waxaan rabaa la wadaago war weyn oo runtii aad looga hadlayo waliba waddanka Ingiriiska iyo Faransiiska oo ku saabsan heshiis ay wada gaadheen wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska heshiis waxa weeye heshiis in la joojiyo dadkii ka sugayay badda Faransiiska iyo Ingiriiska waddankan Ingiriisku waxa heshiis ku saxay wasiirka xogayaha guud arrimaha gudaha gabadha haysta Home Office-ka Suella Braverman dhinaca kala dhigeeda ayaa iyadana joogay wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska heshiisku ku dhacay Paris waxaanay sheegeen Ingiriisku wuxuu sheegay in lacagta ku bixin ay tahay lacag u dhaxaysa ilaa 5 milyan ilaa 3 milyan oo pound sanadkii ku bixiyaan si dadka qaxoontiga soo galaya waddanka Faransiiska dhinaca Faransiiska isugu Ingiriiska si loo joojiyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay meesha loo diri doono police officers saraakiil police loo diri doono iyagana 200 ilaa 300 si dadka loo joojiyo faraha badan ee ka soo dhinaca Faransiiska waxay sheegeen in dadka hadda soo galay sanadkan ay yihiin 40 ilaa 40 kun oo qof ay soo galay sanadkan oo ay tahay markii ugu badneed ebid inta laga soo galay ilaa marka laga yimaado sanadkii 2018 waxaan sheegay waqti xalalkan ay dadka ugu badnaa ay soo galaa dhinaca kale laftigeeda warbaahinta waddanka Ingiriiska waxay qorayaan in dhowr kun oo qof oo Ingiriiska laga celiyay jiraan oo qaxoonti asylum oo lagu celiyay wadamadoodii dalkaasina waxay dadka Albania oo ku yeela dhinacan dambe wadamada yaryar bariga Yurub kuwa dadka badan way celiyay marka wararkaas soo kordhay wixii kale akhbaarada kalena way soo baxayaan